Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada asxaabi mar kale iyo muuqaal cusub. Intii lagu guda jiray wadahadaladii xasaasiga ah ee Isniinta, quwadaha reer galbeedka waxay ku heshiiyeen cunaqabateyn aan hore loo arag oo ka dhan ah Ruushka haddii uu duulaan ku qaado Ukraine. Mareykanka ayaa sidoo kale heegan geliyey ku dhawaad 8,500 oo askari, taas oo Ruushka sheegay inay walaac weyn ku abuurtay. Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inay jirto midnimo buuxda oo ay madaxda Yurub ka leeyihiin ciidamada Ruushka ee dhaqdhaqaaqa ka wada xadka uu la wadaagay Ukraine. Ruushka ayaa sidoo kale beeniyey inuu qorsheynayo duulaan uu ku qaado dalka Ukraine. Si kastaba ha ahaatee, ilaa 100,000 oo askari oo Ruush ah ayay dayax-gacmeedyadu sawir ka qaadeen, kuwaasoo la geeyay xadka Ruushka oo la wadaaga dalka Ukraine. Ku biiristii Mareykanka iyo Ingiriiska wadahadaladii Isniinta ayaa sidoo kale kor u sii qaaday muhiimadda kulanka. Waxaa sidoo kale ka qayb galay hogaamiyaasha dalalka Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Poland iyo Midowga Yurub. Xogayaha guud ee NATO, Jens Stoltenberg, ayaa sidoo kale qadka taleefanka uga qayb galay wadahadaladaas. Afhayeen hadlay shirka kadib ayaa sheegay in hogaamiyaasha ay isku raaceen muhiimadda ay leedahay in loo midoobo sidii looga hortagi lahaa cadaawadda sii kordhaysa ee Ruushka. Haddii Ruushka uu duulaan ku soo qaado Ukraine oo ay dhacdo arrintaas, waxay ku heshiiyeen in isbahaysiga ay soo saaraan jawaab argoosi degdeg ah oo ay ku jirto cunaqabateyn aan weli hore loo arag. Isniintiina soo dhaaftay, Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa ka digay in warar sirdoon ay muujinayaan in Ruushka uu qorsheynayo weerar uu ku wajaho caasimadda Ukraine ee Kyiv. Isla markaana Ingiriiska ayaa bilaabay inay la baxdo qaar ka mid ah shaqaalaha safaaradda ay ku leedahay halkaas. Sidoo kale, Mareykanka ayaa isna qaaday tallaabo taa la mid ah, isagoo ku amray ehelada shaqaalada safaaradda in ay isaga baxaan Kyiv. Qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO ay ku jiraan Denmark, Spain, Faransiiska, Netherland ayaa durba qorsheynaya inay diyaarado dagaal iyo maraakiib dagaal u diraan bariga Yurub si ay u xoojiyaan difaaca gobolka. Aqalka looga arrimiyo Ruushka ee Kremlin-ka ayaa sheegay in ay u arkaan Ukraine inay ku biirto NATO khatar dhanka ammaanka ah, waxayna dalbanayaan damaanad qaad sharci ah oo ah in ay isbahaysigu aanay isku sii ballaarin doonin bariga Yurub oo ay ku jirto dalalka dariska la ah oo ay ka mid tahay Ukraine. Muddo bilooyin ah, dalka Ukraine waxay diyaarinayaan ciidamo difaaca dhulka ah kuwaasoo ah kuwo mutadawiciin ah si ay kaga hortagaan ciidamada Ruushka. Ruushka ayaa horey u qabsaday dhul ka mid ah Ukraine kadib markuu weerar kadis ah ku qaaday gobolka Crimea sanadii 2014. Kadib markii ciidamadii Ruushka ay la wareegeen gacan ku haynta Crimea, waxay qabteen afti shacabka gobolkaas ay ugu biirayaan Ruushka. Aftidaas oo reer galbeedka Ukraine ay ku tilmaameen mid sharci darro ah. Haddaba waxaan isbarbardhig ku samayn doonaa awoodaha dhanka militariga ee NATO iyo Ruushka haddii uu dhaco dagaal toos ah. Haddii aan ku horumarno NATO, mabda'a asaasiga ah isbahaysiga militariga caalamiga ee NATO waa nidaam difaac wadajir ah, taasoo la micno ah haddii waddan kasta oo xubin ka ah ay cid saddexaad soo weerarto, markaas waddan kasta oo ka mid ah NATO waxaa waajib ku ah inuu dagaalka soo galo si uu u difaaco dalkaas. Waddan kasta oo ka mid ah isbahaysiga NATO waxaa waajib ku ah inuu qayb ka bixiyo miisaaniyadda howlgallada militari ee NATO. Mareykanka waxa uu qarash gareeyaa in ka badan 2 laab inta kale ee NATO marka la isku daro wadamada xubnaha ka ah, iyadoo 2021 qarashka uu ku bixiyay lagu qiyaasay 705 milyan oo pound sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga. Marka laga soo tago Mareykanka inuu yahay dalka dhaqaalaha ugu badan difaaca adduunka geliya, sidoo kale waxa uu leeyahay hub awood badan iyo tiro aad u badan oo ciidan tababaran ah. 1.3 milyan oo ciidan diiwaan gashana ayaa shaqeeya. Sidoo kale waxa ay leeyihiin 865,000 oo kayd ah sida lagu sheegay New York Times 2017. Ingiriiska waa waddanka labaad ee bixiya qarashka ugu badan NATO, iyagoo geliya ku dhawaad 50 milyan oo pound sanad walba. Marka la barbar dhigo Jarmalka oo bixiya 45 milyan, Faransiiska oo iyana bixiya 42, iyo Talyaaniga oo bixiya 20 milyan oo pound. Inkastoo aysan jirin ciidan go'an oo NATO ah, isbahaysigu wuxuu ka faa'iideysanayaa ku xisaabtanka awoodda militari, khibradda waddan kasta oo xubin ka ah isbahaysiga. Dal kasta wuxuu miiska soo saaraa ciidamada, taangiyada, doomaha dagaal iyo xitaa diyaaradaha dagaal ee casriga ah. Maanta waxay awood u leeyihiin in loo tiriyo ku dhawaad 3.5 milyan oo qof oo isugu jira ciidan, rayid,
waddan kasta oo xubin ka ah wuxuu oggolaadaa in uu wax ku biiriyo iyadoo loo eegayo miisaan istaraatiijiyadeed oo kala duwan iyo saameyn kala gedisan oo dhinac kasta howlgaar uu ku aadayo. Si guud, dalalka NATO xubnaha ka ah waxay gaarayaan ku dhowaad 30 dal. Marka aynu eegno awoodda Ruushka, waa dalka ugu weyn dunida ee balaciisu uu gaarayo 17 milyan oo kiiloomitir oo isku wareeg ah, waana dalka labaad ee ugu weyn ee dunida soo saara shidaalka marka laga tago Mareykanka, isagoo gaaraya 10.27 milyan oo barmiil oo shidaal ah maalintii. Waa dalka ugu weyn ee leh hubka nuclear-ka marka laga soo tago Mareykanka, waana dalka afraad dunida ee ku qarash gareeya lacagta ugu badan gaashaandhigga. Sanadii 2020 wuxuu ku qarash gareeyay ku dhowaad 67 milyan oo dollar. Sida laga soo xigtay hay'adda Heritage Foundation ee fadhigoodu yahay Washington, agabka dagaal ee Ruushka waxaa ka mid ah 336 gantaal oo balaastig ah ee qaaradaha isaga kala goosha, 2840 taangiyada dagaalka ah, 5220 baabuurta gaashaaman ah, iyo ku dhowaad 1 milyan oo askari oo qalabkooda u dhan yahay, iyo in ka badan 4684 dhuumood oo madaafiic ah. Sidoo kale, Machadka Nabadda ee Serbia ee fadhigoodu yahay Stockholm waxa uu sheegay Ruushka in uu haysto in ka badan 50 madax oo hubka nuclear-ka xambaara ah. Sidaas oo ay tahay, Ruushka waxaa ka maqan qaybo badan oo ka mid ah hubka ku shaqeeya tiknoolajiyaddan casriga ah oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, qaybaha elektarooniga, iyo sahanka raadaarka iyo dayax-gacmeedka. Kadib markii uu burburay Midoogii Sofiyeed, Ruushka ayaa la wareegay tiro badan oo ka mid ah hubka nuclear-ka kuwaas ay farsameeyeen Sofiyeedka.